waxaa loo yidhaahdaa dabeecadda bini'aadamku waa boqol aan gun iyo rucub lahayn. marka wanaagga iyo danaystanimadu isku dhacaan dhinace ayaad istaagi lahayd. odaygan wuxuu leeyahay caado la yaab leh, wuxuu jecel yahay inuu dallad qaato xataa haddii ay qoraxdu aad u kulushahay. xataa markii wiil yar oo dhib badan uu ku dheeldheelay, odaygu si deggan ayuu ula saaxiibay. maalin maalmaha ka mid ah, irkii ayaa isbeddelay oo daruuro madow qariyeen, roob xooggan ayaana bilaabay inuu da'o. odaygii si deggan ayuu dalladiisii u furtay, wuxuuna arkay hooyo ilmo yar xambaarsan oo roobku qoynayo. si degdeg ah ayuu ugu gurmaday oo dalladda u huuyey. waxaa kaloo soo orday wiilkii yaraa oo isna dhaxmoonaya, isagana odaygu wuu soo dhoweeyey. saddexdoodii oo nabad qaba ayay dalladda hoos galeen, laakiin daqiiqad kadib nin xiran funaanad cas oo aan oggolayn inuu qoyo ayaa madaxa si qasab ah u soo geliyey. waxaaba ka sii daran, nin kale oo funaanad cagaar xiran ayaa isna soo booday oo si naxariis darro ah odaygii bannaanka ugu tuuray. meeshii fowdo ayaa ka dhacday. dadkan xoogga weyn waxay la wareegeen dalladdii aanay lahayn iyagoo isku riixriixaya. dadkii dhabta ahaa ee u baahnaa sida odayga, hooyada iyo ilmahana bannaanka ayaa loo saaray. odaygu wuu aamusan yahay, mana fahmayo sababta dalladiisii looga eriyey oo uu roobka ugu qoynayo. dadkan danaystayaasha ah weligood isma eedeeyaan, waxayna u haystaan in xooggu xaq yahay. si lama filaan ah, dabayl xooggan ayaa dalladii rogtay oo jebisay. markii ay dalladdu wax tarbeeshay, kooxdii xoogga isticmaalaysay way kala carareen iyagoo xanaaqsan, waxayna raadsadeen meel kale oo ay gabaad ka dhigtaan. odaygii ayaa soo laabtay oo si dulqaad leh isugu dayay inuu dayactiro dalladiisii jabtay. kuwii xumaa waxay bilaabeen inay ku qoslaan oo ku jeesjeesaan dadaalkiisa, iyagoo dhinac ka daawanaya. markii uu dalladii hagaajiyey, ayuu haddana si naxariis leh u yeedhay hooyadii iyo wiilkii. balse isla markiiba kooxdii tuugada ahayd ayaa soo weerartay oo mar kale la wareegay dalladii, iyagoo dadkii liitay bannaanka dhigay. ugu dambayn roobkii uu istaagay, qoraxdiina way soo baxday. hadda dalladii qiimo ma laha, dhulka ayaana lagu tuuray maadaama aan loo baahnayn. odaygii ayaa aayar iska qaatay dalladiisii. sheekadan waxay ina baraysaa xaqiiqada qaraar. haddii aadan wanaaggaaga xad u yeelin, dadka danaystayaasha ah xitaa waxa aad leedahay ayay kaa qaadanayaan, adigana bannaanka ayay ku dhigayaan.